xaflad ballaaran oo hambalyo iyo dhiirigelin loogu sameynayay dhaqaatiirtii ugu badneyd ee ku guulaysatay imtixaankii Rajab Tayyib Erdogan ee Digfer ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. maamulka jaamacadda Jazeera ayaa xaflad heerkeedu sareeyo u qabtay 23 dhakhtar oo ah kuwa jaamacaddu ay soo saartay iyadoona jaamacadda Jazeera noqotay jaamacaddii ku guulaysatay 3 sano la soo dhaafay tiradii ugu badneyd ee dhaqaatiirtii gashay imtixaankii lagu qaaday Erdogan Hospital. ku dhawaad 600 oo dhakhtar oo wadanka oo dhan ah ayaa imtixaanka gashay waxaana la doonayay inay soo baxaan 44 dhakhtar iyadoona jaamacadda Jazeera ay ku lahayd 23 dhakhtar oo u dhigantay 51%. Dr. Luul Maxamuud Maxamed oo ah urmudka kuliyadda caafimaadka jaamacadda Jazeera, Dr. Cabdullaahi Aadam Shabac oo ah gudoomiye ku-xigeenka dhanka waxbarashada jaamacadda iyo gudoomiyaha jaamacadda Jazeera Professor Salaad Ibrahim Fidow ayaa dareenkooda cabiray iyagoona ka warbixiyay sida ay ku timid guushan taariikhiga ah. waxaan ognahay Erdogan markii la bilaabayay inta hadda arday oo dhakhtar oo ka shaqeyso waxaa ka shaqeysa 138 dhakhtar oo takhasus ka wado 40 kamid ah Jazeera ka baxeen marka taas oo aan ku jirin kuwa hadda galaya hadda maanta 44 ay u waceen 22 kamid ahna Jazeera waa marka more than 50% ah heesaas ku haysanaa insha Allah marka waxyaabaha aan uga gudisanahay jaamacadaha kale waxaa ugu muhiimsan inaan horta marka hore dhoorno sharciga aan qoranay ama manhajka aan degsanay inaan waqtigiisana ilaalino u xulno macallimiin aqoon u leh oo dhigi kara maadadaas ugu yaraan master iyo PhD hadii la heli karo maado kasta inaan u raadino macallinka ugu fiican oo wadanka jooga oo wax ka dhigi karo. waxyaabaha kale oo aan qabano waxaa kamid ah in ardayga markuu xisadiisa dhiganayo kadib inaan leenahay qayb la dhaho tutorial oo ah inaan gruubyo inta u qaybino loogu celiyo casharadii oo macallimiin kale aan u qabano. waxyaabaha kale oo Jazeera ay dheer tahay jaamacadaha kale dhiga waxa waqtiga dheer oo ardayda wax u dhigaan oo ayadana ah waqti aad u badan marka loo fiiriyo jaamacadaha kale. waxaan kaloo leenahay practical 3 qaybood ah qayb ay lab practical oo loo sameeyo oo ah skills oo ah ardayga intuusan tegin qof intuu ku baran lahaa hadda waxaa la helaa models wax lagu barto modelskaas oo dhameystiran ayaa jaamacadda yaalo oo ardayga wax ku bartaa laga soo bilaabo sanadka koowaad ilaa iyo jaamacadda oo ka baxay intaba way anfacayaan modelskaas ayagoo u qaybsan qaybta basic ah qaybta clinical ah qaybta obas and gynae ama haweenka qaybta caruurta qaybta emergency-ga oo ah qof emergency ah wax ugu qaban lahayd intaas waxa isbitaal waxaan labkaas ay ku bartaan. waxay kaloo sameynaa inay physiology lab leeyihiin iyo laboratory dhameystiran oo medicalka ah. ma haddaas rabbi subxaanahu wa ta'aala marka laga tago waxaan rabnaa in uga mahad celino waalidiintii juhdiga badnayd ku bixiyay ee la garab taagnaa muxuu ahaa ardadaas iyadoo aan ognahay xanuunka ay lahayd lacagta ay ku bixiyeen iyo waqtiga iyo dhibta badan ee ardadu ay wajahi jirtay sida ugu dulqaateen. sidoo kale waxaan ugu mahad celinaynaa macallimiintii juhdiga badnayd ku bixisay inay heerkan soo gaaraan sababta oo ahaa. waxaan aad iyo aad ugu mahad celinaa markii u dambeysay ardadeenna guud ahaan oo runtii ama ha noqoto engineering ha noqoto ama computer science ha noqoto ama ha noqoto businesska ama educationka ama all nurseska ha noqoto dhammaan runtii mar kastaba waxaan ka maqlaynaa guulo fara badan ayaan ka maqlaynaa. ilaahay ha idin barakeeyo guulo fara badan Allah ha idin siiyo intaas in ka badanna ilaahay maaragtay qaadir raxmaan asaga ayaan ku mahad celinaynaa oo idin siiyay hawshaas. Professor Ibrahim Bursilid iyo Professor Yahya Amir oo lagu casuumay munaasabadda ayaa kula dardaarmay dhaqaatiirta inay ixtiraam u muujiyaan bukaanada ay la dhaqmi doonaan iyagoona ugu mahad celiyay maamulka jaamacadda Jazeera sida ay ugu dadaaleen tayada waxbarashada dalka. ardayda waxaan rabaa si gaar ah in ugu dardaarmo in ay u naxariistaan dadka bukaanka ah oo insaaniyadda la fiiriyo si gaar ah islaamnimada iyo Soomaalinimada in la fiiriyo. markale jaamacadda waa bogaadinayaa jaamacadduna waajibkeeda waa ka soo baxday oo ardaygaad waxaan dareemaynaa ardadan in bad xoog leh inay gelis iyaguna inay iska sii geliyeen mid kale si ay uga soo hormaraan kuwa isla jaamacadda la dhiganayo
doctor siduu say noo sheegtay provisionka keliya lama baray tiri ardada waxaa la baraa bulshada ay la noolyihiin si una noolaa lahayn meeshaas waxaa ka muuqata marka arday xirfadda yaqaan laakiin indha ku biyoole ah jaamacaddu sooma saarin waxay soo saartay arday xirfadiina yaqaanna siduu bulshada ula noolaado that's why hadda waa idin sheegayay intaana ardada ayna jaamacadda gelin ma aha ilmaha aan dhala kaliya walaalahay xataa jaamacaddaanay ka baxaan waxaan fiiriyay nooca jaamacadaha magaalada kuwa badan oo fiican waa jiraan kuwa ugu sii fiican ilaahay wax u qadaray inta ugu badan aan go-aansaday inay jasiira dhigtaan waa inta go-aanka aan qaybta aan ku lahay joycekaas aan gaaray kuma khasaarin ilaahay ugu guuleeyey sidii aan tuhmayay ee kusoo baxday jaamacaddu marka waalidku ilmihiisa wuxuu jecel yahay inuu meel fiican geegso ma anaka marka economistanahay waa iska qiimeynaa meeshaan wax maalgelin lagu samaynayo aabasalaad xasan oo ku hadlayay afka waalidiinta dhakhaatiirtii guulaysatay ayaa dhankiisa ka mahadceliyey guusha ay soo hooyeen maamulka jaamacadda jasiira ilaahay baan uga mahad celinayaa si qaasa iyo si caamaba alxamdulilaahi shukrulilaahi heerkii aan rabay waa soo gaaray haddee jaamacaddana waa u mahad celinaa dadka dhalay oo magaalada deganna waxaan ku dhiirigelinaa qofka haddii wax la baro ama gabar ha ahaadee ama wiil ha ahaadee waa bulsho wax la baray aqoontu waa furaha nolosha cabdulaahi maxamed shirwax iyo diini maxamed diini oo soo hogaaminayay bulshada rayidka ayaa qiray qiimaha iyo tayada waxbarashada dalka iyagoona ku baaqay in la aamino wanaagga iyo waxtarka ka muuqda dalka waxaan rabaa kaliya inaan u hambaliyeeyo 23 dhalinyarada ah imtixaanka ku guulaysatay muxuu ahay muujiyey muxuu ahay karti iyo aqoon iyo dadaal fara badan oo dabcan sidii hore loo sheegay professoradu u sheegeen ka imaanayda macalinka iyo waalidka iyo maamulka jaamacaddaba ka imaanaysa marka aad iyo aad ayaan idin bogaadinaya halkiina ka sii wada imtixaanadu waa badan yihiin allaha idin fududeey runtii markaan soo gelay hoolkan farxadaydu say ahayd iyo hadda saan ahay ismala aadan faraxsanahay waxaan ka mid ahay dadka aada u dhiirigeliya waxbarashada dalka gudihiisa waana arkay dhalinyaro fara badan oo dalka gudihiisa wax ku baratay oo hay-adahan internationalka ka shaqeeya oo very competitive waxaan aada u dhiirigeliyaa in qofku dalkiisa aamino dadkiisana u shaqeeyo dalkiisana u shaqeeyo gudoomiyaha midowda dugsiyada gobolka banaadir ustaad cabdiqaadir maxamed xasan ayaa sheegay in guusha cid kale kuu qirto ay ka muhiimsan tahay midda adiga aad isku qirto guusha tan ugu wanaagsanna waxay tahay marka la joogo macallimiintaada markay ku qiimeeyaan waxaa kasii qiimo badan oo kasii maaragtay farxad badan ummad kale markaad ay ku qiimeeyaan oo tartan aad gashid taa runtii waxay ku tusaysaa mu'asasadii iyo hay-addii wax kusoo bartay in guul ay u tahay adigana waxay kuu tahay sharaf iyo guul sababtoo waxaad xaqiijisay ummad badan oo tartamaysay number kooban oo la qaadan lahaa ayaa ilaahay ku waafajiyey taasna ammaanteeda iyo abaalkeeda waxaa iska leh jaamacadda jasiira runtii 23 dhakhtar ku lahayd tiradii la sheegay hadda 50% ka badan waxay ku tusaysaa dadaalkii macallimiinta iyo maamulka iyo qorshahoodii iyo meelaha ay higsanayeen way xaqiijiyeen guushaas doctor ubax faarax qare oo ka mid ahayd mas-uuliyiinta wasaaradda caafimaadka iyo agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare mudane ismaaciil yuusuf cusmaan ayaa kelimado dhiirigelin ah ka sheegay munaasabadda hambaliyada dhakhaatiirta guulaysatay waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa ardaydan ee dadaalkay soo muujiyeen waxaa haniya jabina wadanka waan ognahay meelo badan laguma qaato qofka kartidiisa iyo aqoontiisa qalinka ayaa meel lagu gaarayaa meel alla meesha ratin qalinka ku gaaraysiin hadda qofka ka aqoon badan tihiin waa gaaraysiin hadee maanta heen beri ayaa gaari doonta waxaan goobjoog ka ahaa horumarada jaamacadda jasiira malba ay qaadaysay waxaan goobjoog ka ahaa saxiixii ee jaamacad ceen shamsi ee dalka masar ay kula saxiixaneen magaalada qaahira aan goobjoog ka ahaa oo maaragtay in horumarka laga gaaray xagga caafimaadka marka maadaama mar walba horumar ay gaarayso xagga caafimaadka jaamacadda jasiira
waxaan u ballan qaadaya insha allah sanadka soo socda inaan maaragtay post graduate ardada caafimaadka aan ka siiyo dalka masar insha allahu tacaala ugu yaraan 5 kursi ugu badnaan 10 kursi insha allah haddaan noolnahay sanadka soo socda post graduate oo caafimaadka ah oo dalka masar insha allah. ugu dambeyntii maamulka jaamacadda jaziira ayaa bilad sharafeed guddoonsiiyey hormuudka kuliyadda caafimaadka ee jaamacadda jaziira doctor luul maxamuud maxamed oo door weyn ku lahayd guusha isdabajooga ah ee ay gaarayaan dhakhaatiirta wax ka barata jaamacadda jaziira.